munaasabad aad iyo aad u ballaaran oo boqolaal qof oo jaaliyadda Soomaalida ah ku dhaqan dalkan Ingiriiska ay ka soo qayb galeen ayaa lagu qabtay magaalada London taas oo lagu taageerayay maamulka cusub ee madaxda uu ka yahay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Mudane General Xasan Maxamed Xuseen Muungaab waxaana dadka ka soo qayb galay xafladaasi qaarkood hadaladii ay ka soo jeediyeen ku muujiyeen siday u taageersan yihiin gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay taageeri doonaan xaq dhaqaale fikir iyo maskaxba barnaamijkan oo caawa halkan iskugu nimid oo ah soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Xuseen Muungaab iyo sagootinta gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Maxamuud Axmed Tarsan waxaa sharaf noo ah anagoo ku hadlay magaca guddiga aqbalaadda qiimaha leh idinkoo maanta ay ahayd maalin shaqo oo aad shaqadiina uga soo tagteen inaad ka qayb qaadataan farxaddan iyo soo dhaweyntan waxaan leeyahay meeyarka Muungaab hooshii aad qabatay ama ciidamada aad ka qabatay waxay ahayd mid loo riyaaqay ummadda Soomaaliya oo dhan ugu riyaaqday ayay ahayd waxaan kaa rajaynaynaa tii shalay tallaabadii aad qaaday mid ka sii dheeraysa qaad baan leehay maxaa yeelay sidaad og tihiin xamar waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed waa caasimadii calanka Soomaaliyeed oo u soo halgantay عوض حواي هباب فرحات صفر حدا أنواع كرد التعلم وحن جعل الكلية إلى أن هذا اليوم جاليات الصوماليات كل UK كانها لندن ورنتي يعرره هذا بقى ورنتي حفلتها قيمها يقايها له عاوة ترى الشيء إنه يقصر بويان الدنيا والصب قول البنادر عن الدخول المجالة الدشو جنرال مونغاب إسلامك عزمه يقصر بويان الدنيا بوري إسلام قول البنادر عن الدخول المجالة الدشو محمود أحمد ترسم walaalayaal magacaabidda Muungaab waan soo dhaweynaynaa waxaa kaloo soo dhaweynaynaa afkaartiisii xambaarsan oo ku rabo inuu ku xasiliyo magaalada Muqdisho oo ah caasimadii waddanka Soomaaliya waxaan filayaa shaqa ama hawl ama mas'uuliyadda isu xil saaro aniga kolle xaggayga tii ugu qiimaha badnayd waayo waxa weeye waxaa loo dhiibay furihii caasimadda qaranka Soomaaliyeed caasimadda oo inagu dheero meel aynu ognahay ninkii wax garanaya kaga taal qofka mas'uuliyaddeedii loo dhiibay waxay la tahay inaan wax yar loo dhiibin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo fikir dheer kadib la tashi dheer kadib markuu la tashtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xubnaha muhiimka u magacaabay Mudane Xasan Maxamed Xuseen Muungaab gobolka Banaadir waxaan gudoomiyaha jaaliyadda Muungaab waxaan u mid qeyrada ay leedahay mataqaana xafladan caawa walaalayaal maanta waxaad u maleeyay waxaan la ogyahay magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo in dadkeeda ay u istaageen idinka waardiyaysiin idinka securityada ka shaqaysanaysiin idinkeeda sugaysaan ismaheedii idinkeeda sugaysaan sida aad qashinka mataqaana lagu soo xaaqay askari qaba lahaydeen
idinkeena sugaysaa guryaha kuwa diidiifaa ka garaysanaysiin ee afka dooban leh wax qarxinaya inaad iska qabatiin idinkeena sugaysaa caawa waxaa naga go'an annaga qowmiyadda banaadir haddaan nahay muungaab inaan la shaqayna hiil iyo hoo ayay naga go'an tahay dadkan hooyaad dihatay hooyo dihashadeedu waa dahab dadnimadeedu waa dahab dareenkeedu waa dahab caawa diyaar waxay u tahay gobolka banaadir lugihiisu ku istaagay suu madaxa kor ugu qaadi lahaa nin istaahilo ayaa tahay muqdisho nin xubintiisa ay ku duugan tahay muqdisho ayaa tahay waad u qalantaa annaguna dhammaan haweenka qaranka Soomaaliyeed ee UK waa ku taageersanahay Mungaabow nolow 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 Soomaaliya dhammaan ummadda Soomaaliyeed Tarzan wuxuu qabtay howshii annaga aan qaban lahayn Tarzan wuxuu gutay waajibaadkiisa waxaan soo dhaweynaynaa mudanaha cusub jeneraale Xasan Maxamed Xuseen Mungaab Mungaabow calankeena muuqdaadu tahay mas-uul murtida Soomaali midnimo laga rabaa magaca Soomaali midnimo laga rabaa murtida meteleydo waa inaad la mahadiyaa muran wax tari maayo maslaxa laga rabaa ha kugu meegan geliya raabihege macbuudaha muqdisho mandaq ayaa mayarkeedu tahay cadaalad waa lagama maarmaan magac lamaal subaxa laga qaada kaxshii qasabkii degnay subaxa laga qaada kaxshii qasabkii degnay bangi silsila wayna ubax yala laga suraa markaad soo dhaafto baarlamaanka aad u soco markaad soo dhaafto baarlamaanka aad u soco saldana ku qaasa rabbigaya ku saqiro jaaliyadda Soomaalida ee qurba joogta ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska ayaa aad u hadal haya gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab waxaana aaminsan yihiin inuu yahay shakhsi wax ka bedeli kara ammaanka loo caalwaayay muddada dheer ee gobolka Banaadir ana aaminsan yihiin uu ku soo dabaali karo wada noolaansho dhaba dadka reer Banaadir Abdirasaaq Socoto warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London